qaar soo dhawaada ciyaaraha aan geli doonaa xalay wixii dhacay Ingiriiska iyo Holland sidii loo maleynayay ayay wax u dhaceen sababtoo ah dadku waxay dhahayn Ingiriiska soo baxay Rio Ferdinand iyo Roy Keane iyo dhammaan dadka saadaaliya ciyaaraha inkasta dadka soo jeeda UK iyo haddana waxay dhahayeen Ingiriiska ayaa soo baxay xalay Ingiriiska 2-1 ayay ku dhifteen Hollandeeska gool lagu hormarayna waxa uu barbareeyay rigoor ku barbareeyay ninka lagu magacaabo Harry Kane ugu dambeyntiina Watkins ayaa gool waliyay 90 daqiiqo markay mareysay ciyaarta halkaasna 2 daqiiqo kaliya ayaa lagu daro ciyaartu waxay ku dhamaatay 2-1 Ingiriiska xalay way dabaaldigay reefana xalay waa laga seexaway marka waxa leeyahay Ingiriiska Spain haddana Spain ay joogto Yamal ninka la dhahay waa adag yahay sida lagu maro ninkaas way adag tahay marka Ingiriiska uma sahlano waa markii labaad taariikhdooda ay final gaarayaan leeyahay Euro horena ayaga ayaa Talyaaniga final la gaaray oo rigorooyin ay looga qaaday Euro-gaana hadda waa kana final ay soo gaareen marka Ingiriiska waxa leeyahay dab yar mashidayaan marba haday 2 jeer isku xigto final ay tageen record ay badhigana lagu leeyahay 2 sano isku xigto final waayahan lama tagin marka waa arki doonaa dadku laakiin waxay sadaalina hadda Spain inaysan koobkaas meel cilla ay ka qaadan doonto oo wax dhibaato aysan kala kulmi doono ay dadka aaminsan yihiin saadaashaas markaad fiirisid dadweynaha dadka qaar inkastoo ay leeyihiin war Ingiriiska markaan meel bay u socdaan ama Ingiriisku qaadaa dadka qaar dhahaya laakiin waa arki doonaa cidii dafto horyaalka ama Euro-ga 2024 maalinta Axadda ayaa la ciyaari doonaa oo halkaasi ayaa lagu soo gabagabeyn doonaa marka waxa dareemaysaa in horta Euro-gi soo dhamaaday oo lagu mashquulsanaa dadka qaar waxay leeyihiin war Euro-ga ma rabnee waxa noo fiicneed Premier League iyo Serie A iyo La Liga iska daawan jirnaa noo dhaama Euro ma rabnee hanaga la dhameeyo dadka qaar fikirkaas qabo oo dhahayo war waxaan u xiisnay ciyaarihii kale ee horyaalada marka dadkii ka naxsanaayo arrinta soo dhamaatay ciyaarihii ayaa hadda si toos ah u bilaaban doona July saaxiibtinimo la ciyaari doona August-na way bilaaban doona horyaalada hadduu Ilaahay yiraahdo marka July ka dhiban ayaa friendly oo la ciyaari doona laakiin August 13 ama 12 Premier League oo bilaaban doona Community Shield taariikheed meelahaas ay la ciyaari doona kadibna Premier League ayaa furmi doona Premier League mar waa la isku soo dhaweeyay dhan kale haddaan eegno Arsenal iyo Manchester United waxay ku tartamaan xidig Fenerbahce oo ciyaaro difaac ka ciyaaro waana xidig Turkiyaana oo markaas difaac si fiican ugu ciyaaro waxaan leeyahay labadooduba midkood ayaa qaadan doona maadaama ku tartamayaan Manchester suuqa waxa wax difaac ay ka raadinaysaa Arsenal waxay raadinaysaa golaha Wolves Bentley ninka lagu magacaabo dalab ay ka gudbisana waa laga diiday waxa leeyahay Ramsdale ayaa marka booskiisa ay rabaan in buuxiyaan ninkaas oo badan tahay inuu ka tagi doono naadiga Arsenal marka kaydka ayuu ninkaas ku qanci waayay marka waxa leeyahay ugu yaraan gool haye kale u baahan oo saddex gool haye ay Arsenal u baahan tahay marka Raya ayaa gool haye koobaad noqday oo hadda si toos ah ula wareegeen marka ay kala soo wareegeen Brentford arka doona marka sidee noqoto rag fara badan oo markaas suuqa laga doonayo ay jirto Arsenal hal waryahan iyo hal goalkeeper iyo hal daafac saddexdaas ay waxay doonaysaa hal waryahan horta wali ma aysan helin daafaca way heshay oo markii la Calfiore ay la wareegeen laakiin waxa uu dhiman hal waryahan iyo hal goalkeeper ay aad u doonayaan marka Arsenal waxa leeyahay halkaas ay ka doonaysaa xidig number 3 ka ciyaarna way doonayaan oo ayaga Manchester waa ninka hadda isku haystaan oo Turkiyaanka ah markaasi Hogla la yiraahdo oo ka ciyaaro Fenerbahce marka waa arki doonaa bal meeshii ay ku dhameystaan hal daafac oo bidix iyo hal daafac oo toos ah iyo hal waxa la yiraahdo weeryahan iyo hal goalkeeper Arsenal hadda ay xilin ciyaareedka dambe wacdar ay dhigi doonaan Manchester United naftigeeda ciyaartoy badan ay doonaysaa waxaan leeyahay ciyaartoyda ka sabartay markaas ay iska iibi doonto waxa kamid ah Anthony iyo waxa kamid ah Bruno Fernandes ninka lagu magacaabo Rashford hadii suuq iyo dalab sax loo helo hadii kala teamka inay joogan ay ku qasban yihiin Harry Maguire oo kala asagana waxay doonayaan iska iibiyaan xidigan dhaawacyada dileen midkood inay iibin doonaan ay u badan tahay waa ninka Lucas Shaw iyo Malaysia inkastoo Lucas Shaw sheegay in la siyaasan doono xidig khibrad leh oo yahay laakiin Malaysia in la iibin doono u badan tahay maadaama hal sano oo garoomada soo galay taas marka waxay dhawr ku tahay United inkastoo suuq oo si toos ah u sii furmi doono ama toos loogu wareegi doono marka Euro-ga laga mashquulkiisa laga dhamaado ay kooxaha markaas toos ugu wareegi doonaan inay marka wax kala iibsadaan waa arki doonaa wixii ka soo kordho waxa la leeyahay ayadana Liverpool wali suuqa ay ku jirtaa oo ciyaartoy badan ay raadinaysaa waxa leeyahay in riga oo striker ay raadinaysaa waryahan ay doonaysaa in Mohamed Salah ay soo joogi doono u badan tahay walow carabaha looga baaqayo Bruno Fernandes iyo Mohamed Salah iyo rag kale fara badan carabta ayaa looga yarayaa waxa la leeyahay halkan ay lacagta la bal imaado ninkii maxaa la yiraahdaa Rafael Varane asagna la dhahay team weyn oo aadi doona Como ay u ciyaarayaan naadi hadda Serie B ka soo dalacday Talyaaniga markaas joogto Cesc Fabregas ayaan iskala teamkaasi waxa la leeyahay marka naadiga Como ay u wareegalee ninkaasi hadda si toos ugu biiraya meeshii laga sugay ninkan Champions League oo ciyaar doona oo team kala khibrad leh ursi raadsan doona la isdhahay Manchester ka tagay Como ka dhacay marka footballka asaaska ah marka xirfadaadu weynaato da'daadu meelaha hoos iska galaysa marka
Lionel Messi ninka aan final jooga wuxuu leeyahay finalka ayaan markaas sanadkan aan ku gabagabeyn doonaa maadaama ay noqonayso Copa America ugu dambeeyay halka ninka Ronaldo mar hore uu ka huleelay Euroga oo leeyahay gurigaada iska jiifo inkastoo leeyahay aniguna ma quusanaye 2026 World Cup ka waa ciyaari doona oo weli maana quusana waa jiitamaya inkastoo dadka qaar ay aaminsan yihiin in xifradii ciyaareed ee Ronaldo ay soo aruurtay maadaama xidigan hadda 39 sano ku socdo 40 sano ku sii dhow yahay in waqtigan wax ka dambeeyo aysan suuragal ahayn inuu Ronaldo garoomada ku sii jiro sida horena aysan ahayn xirfadiisa oo orodkii iyo speedkii iyo quruxda badnayd ee markaas goolashii xarakada badnaa aysan jirin waxa leeyahay marka adiga markan waa kaasi dhamaanaysaa iskaga fariis ciyaara Bruno Fernandes wuxuu dalbi karay Sacuudiga Manchester United waxay u fasaxday in markaas wada hadal laga galo in markaas cidii oo doono wada hadal inuu la galo ayaguna lacagta ay ku dalbanayaan xidig inay sheegi doonaan ayaa la sheegaya waxa kale jirta Marcus Rashford in asagana la sheegay in koox badan ay doonayaan oo asagana la fasaxi doono oo naadiga Manchester United waxay leedahay marka wax ka dambeeyo ku fasaxeena in team raadso marka lacagta ayaan xidigan looga cararay ilaa 350 kun oo gini waa lacag mushaar aad u weyn laakiin wadamada Carabaha ayaa laga heli karaa leeyahay xidigan ma doonayo inuu Carabaha ka ciyaaro saacadan isagoo markaas daada 6 sano jir ah inuu hadda Carabaha tago mar raba 30 iyo wix ka dambeeyo haddaan ahaan la tagi lahayo Carabaha laakiin hadda macquul ma marka xidiga kale halkaas ku sugan waa Benzema iyo Ronaldo iyo dhamaan iyo Neymar iyo kulli waa 30 way dhaafeen waa xidiga 30 dhaafay sidaas daraaddeed marka wuxuu xirfadeeda ciyaareed 4 sano ama 5 sano soo socotay ilaa 31 sano ka gaaro Europe ayaan ka qaraabay oo leeyahay oo markaas inaan Champions League ka sii ciyaaro ayaan doonayaa marka waa arki doonaa wixii ka soo kordho xaraash badan ayaa jiri doono naadiga Chelsea oo kale ciyaartoy da'yar oo far badan ay iibsatay ayadana ciyaartoy inay xaraashtay oo badan tahay Liverpool ciyaartoy waaweyn oo waaweyn ka tagay ayadana hadda inay xidiga yar soo iibsato ay u badan tahay walow suuqa si toos aysan u gelin laakiin Fabrizio Romano oo markaas lagu kalsoon yahay ciyaaraha wuxuu sheegay in Liverpool isbuucan ay sameyn doonto 2 saxiix oo markaas muhiim ah marka ayagana waxa ay noqdaan ayaan soo gudbin doonaa haddii la yiraahdo Goal Sports mar walba ka daawataan xoogay ugu dambeeyay ciyaaraha iyo suuqa kala iibsiga iyo Euroga iyo beesha la kala marayo mar walba anagu waxaan ugu talagalnay in xogaa ciyaaraha si toos ah aan kugu soo gudbino marka waa maasantiin barnaamijka shirkareeya Goal Sports Melvin Garcia waxaan mar walba inaga heli doontaan wixii fikirkiina ama commentigana noogu soo qora dhanka ay commentiga wixii fikirkiina ama dad u hantaan in laga soo hadlo oo la idin soo gudbiyo inta barnaamijka ilmi kulmi doonana fi amaan illah